waayahay haddaan hore usii socno markan waxaan gelaynaa sida R programming loogu adeegsado operators kala duwan gaar ahaan arithmetic operators waa calaamadaha loo adeegsado numerical calculations sida calaamadda balaasta minuska u qaybida ku dhifada iyo wax la midka dhowr calaamado kala duwan ay taqaanaa marka R markii la joogo markii arithmetic la rabo in la adeegsado arithmetic maxaa loo adeegsan karaa arithmetic waxaa loo adeegsan karaa numbers in kaliya calculation-kooda lagu sameeyo ama tirooyin haddaad rabto inaad isku darto ama tirooyin haddaad rabto inaad isku qaybiso markaan rabo tirooyin caadi ah inaan isku daro kale markaan rabo tirooyin caadi ah inaan kala jaro markaan rabo tirooyin caadi ah inaan muxuu ahaa ii sheeg isku qaybiyo iyo wax la midka sidoo kale waxaa loo adeegsan karaa factors oo ah in elements isku mid ah ee muxuu ahaa haddana numbers isla ah aan muxuu isku dari karo isku qaybi karo iskuna dhifan karo iyo wax la mid ah sidoo kale waxaa loo adeegsan karaa iyadana matriska ama matrices waxa aan naqaan intaanu nooc oo muxuu ahaa data structures kala duwan ee R programming gudaheeda ah ayaa loo adeegsan karaa wax la yiraahdo arithmetic operators calaamadaheeda waxaa ugu horeeya calaamadda plus oo muxuu ahaay addition la yiraahdo sidoo kale waxaa iyadana ka mid ah calaamadeeda minus oo subtraction la yiraahdo waxaa kaloo ka sii mid ah iyadana calaamadda times ah multiplication waxaa kaloo ka sii mid ah calaamadda iyadana loo yaqaano division oo muxuu ahaa iyadana loo qaybin iyo wax la mid ah markii la joogo R loo adeegsan karo waxaa kaloo ka mid ah exponent ama power waxa loo yaqaano powerta marka iyada laba nooc loo adeegsadaa waxaa adeegsan kartaa calaamadan oo lambarka 6aad ee keyboardkaada ku taala ama waxaad adeegsan kartaa ayadoo double star ah exponent ama waa jibaar ama maxaa waa exponential ma la yiraahdo meelaha qaarkood calaamadda kale arithmetic-ka kamidka ayadana waxa noqonaya oo ku xiga oo ugu dambeeyo aan dhihi karaa calaamadan loo yaqaano double percentage hadaa aragto macnaheedu waxa waaye modular la yiraahdo ama modulus remainder oo kale aan raadinaya si kale hadaan u dhahno waa remainder markaan rabno tirooyin inaan muxuu ahaa inta isku qaybina inaan muxuu ahaa haraageeda soo saarno kale modular ama modulus waxa dhahnaba calaamadan modulus la yiraahdo ayadana waa markaan muxuu ahaa remainder ka raadinayno ama haray laba tiro aan isku qaybina haraageeda oo kale markaan rabno inaan soo saarno ayadana calaamad la adeegsadaa jiro oo arithmetic ka mid ah oo R programming lagu adeegsan karo sidoo kale waxaa jirta calaamad division-ka markii la joogo loo yaqaano integer division oo macnaheedu yahay markaan tirooyinkan isku qaybiyo haddii tirooyinkaas ama nambaradaas uu jajab soo baxo haddii aan rabo inaan jajabka iska remove gareeyo ayadana waxaa jirta calaamad loo adeegsado oo la yiraahdo integer division waxaa loo qoraa division-ka aan naqaanay oo labada dhinac laga mariyay percentage calaamadana waxaa loo yaqaan ayadana integer division macnaheedu waxa waaye in kaliya tiro walbo ama nambarada markaan isku qaybinayo meesha doonaa ku jiraan tirada jajab haday la socoto ama decimal haday la socoto result-iga soo bixi doono markaan isku qaybiyo labada nambar hadduu decimal la socdo in decimalkaas la iga rabo nambarka caadiga ah marka waxaa loo yaqaanaa integer division ayagana waa arki doonaa sida loo isticmaalo intaana calaamado kala duwan iyo muxuu ahaa R programming leedahay waxaa ugu horeeya calaamadda aan adeegsan doono oo la yiraahdo plus marka aan rabo 10 hadaan ku daro muxuu ahaa 20 on muxuu ahaa fuliyo ama ii rangaray aan iraahdo result-iga ii soo bixi doona halkaas aan ka arki doonaa 30 marka tirooyinka isku diri kartaa nambar caadi ah sidoo kale waxaa isku diri kartaa variables qiimayaal ku jira ayagana waa isku diri kartaa laakiin hadda variables awoodeed ma aan gaarin hadda tirooyinkan aan ku soconaa sidoo kale waxaan rabaa 30 inaan muxuu ahaa ka jaro 20 inaan ka jaro markaan 20 ka jaro dabcan ayadana waxaan leeyahay ii fuli waxa ii soo bixi doona 10 oo muxuu ahaa
laba number oo kala duwan aan kala jaro anigoo adeegsana calaamadda arithmetic operator sidoo kale waxaan dhihi karaa 10 waxa u qaybisaa laba u qaybi ayadana waxaan dhihi karaa markaas haddaan iraahdo ii ran garay waxa ii soo bixi doonta in la isku qaybiyey oo maxaa ahaa 5 ay soo baxdo qaybinta marka aan joogo waa sida faahfaahsan soo haddaan iraahdo ayadana sidoo kale marka aan rabo inaan power sameeyo ama jibaar wax la yiraahdo aan rabaa inaan iraahdo 10 waxa ku jibaartaa laba haddaan iraahdo markaas waxa ii soo bixi doonta inay 100 tahay si lamid ah calaamadan kaliya meeshan adeegsanayo waxaan kaloo ayadan aan adeegsan karaa 10 haddaan iraahdo star haddaan iraahdo laba ku jibaar ayadana waxa ii soo bixi doonta isla 100kii oo natiijada ahayd power marka ama exponential la adeegsanayo ayadana calaamadana la adeegsan karaa sidoo kale waxaan sameyn karaa wax la yiraahdo modulus ama reminder wax la yiraahdo haraayo kale aan raadi rabaa waxaan rabaa haraaga markii 20 maxuu ahaay loo qaybiyo 3 haraaga ka soo baxay in maxuu ahaa la ii soo saaro maxaa soo baxay meeshaas laba soo baxay sababtoo ah tiro markii lagu dhifto 3 20 keenaysa ama u dhawaanayso kale hadii la yiraahdo maxay noqonaysaa tiro ma jirtaa 3 hadii lagu dhifto maxuu ahaa 20 noqonaysa ama ka ag dhawaanaysa 3 marka tiro keenaysa hadii aan ku dhifto ama ka ag dhawaanaysa 20 waa 6 dabcan oo 18 noqonaysa haraaga soo harayna marka wuxuu noqday asagana labadaas noqdo markaan reminder ama haray raadinayo kale ayadana waxa adeegsanayo calaamadan modulus loo yaqaano ama reminder kala yiraahdo waxa intaa ka sii dheer calaamadan isku qaybinta kale hadii isku qaybinta hadaan isku qaybiyo 10 hadaan u qaybiyo 3 10 hadaan u qaybiyo 3 3.3 ay soo baxdo Soomaa aniga waxaan rabaa markii tirooyinkan la isku qaybiyo jajabkan inuu san ii soo bixin يعني jajabkan inuu ii soo bixin integer division loo yaqaana waxaan leeyahay 10 waxa u qaybisaa 3 meeshaan dhihay geesaha waxaan ka marinayaa calaamadda kaliya percentage aan geesaha ka marinaya ayadana waxa ii soo bixi doonta in tiradaas 3 kaliya la isar integer division loo yaqaana markii labadaas calaamadood aan adeegsado ayadana integer division loo yaqaana oo kaliya macnaheedu tahay tirooyinka markaan isku qaybinayo hadii resultiga soo baxaya decimals ama jajab ama point ay ku jiraan tiro waxa ah ka dambaysa in waxa ah decimals kaas la iga reebo iyo wax la midka si guud intaas wax loo yaqaano arithmetic operators markii la joogo luqadda R program arithmetic operators si guud markii R program la joogo waa intaan nooc kala duwan waa addition markii R program markii la joogo arithmetic operators calaamadahan waa pluska ama addition waxaan dhahno subtraction oo ka jarad ah multiplication division oo ayadana laba ah marna maxuu ahaa division oo caadi ah decimal wata iyo integer division oo gooniya exponential oo laba jeer calaamadahaas marna la isticmaali karo midan marna la isticmaali karo calaamadan double star ah sidoo kale modulus oo ayadana calaamadan double percentage ka loo isticmaalo integer division hadaa rabnana ayadana la adeegsan karo calaamadan noocan wama santihiin qaybta aan u gudbeenaa kale ee la yiraahdo variableska iyo sida loo abuuro